السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل طوعنا ونكسن دمان انت مقالكي موقعي تقانا عاو waxaan ka hadli doonaa barnaamijkii sportska ee degmada Luuqganaane ee garoonka waxaan dhihi lahay xaaladda hadda jirto waa xaalad u baahan si nooc walba ha ahaata waa xaalad u baahan in la falanqeeyo oo xaaladaas ay tahay xaalad oo macnaha maamulka ayso aad culus u saaran waaye meeshaas waxaa waaye waa grown sports waa grown degmo waxaan dhihi lahay sideedaba maamul baawar leh ayaa fiican waxaa waaye wax walba waxaa fiican inis uu leeyahay baawar aad u fiican uu leeyahay fiican laakiin shayga hadduu baawar lahayn aad u dhib badan yahay baawarkii ay ka dhimatay meeshii baawarkii wuu dhintay baawar lama haayo garoonna waxaa soo galaya laba naadi aa soo gelayso labada naadi waxa lagu leeyahay waxaa lagu haystaa qaladka waxaa waaye waxaa lagu leeyahay waxaa lagu haystaa baleyra lagu haystaa intii horta aad ciyaarta aad qabanin shuruucda qabo shuruucaa la rabaa shuruuc haddiise wax ay lahayn way aaday u dhib badan tahay naadiga muxuu kusoo galaa garoonka shuruuc ma leh shuruuc wax la yidhaahda dhan ma jirto marka waxaan dhihi lahay maamulka inaysi baawar yeeshaano midda kalena degmada sportskeeda inuu baawarkiisa aad u shaqeeyaa fiican mar walbaba naadi oo macnaha oo adiga aad ka saraysid inaad garoonkii oo dhaqankiisa aad u bedeshid waa wax aad loogu naxa waaye waxaan dhihi lahay khaasatan ra'yigayga ah in macnaha naadiga sidiisa baawarkiisa la saaro uu dareemo macnaha inuu guddoomiyaha baawar uu leeyahay maamulkiisa baawar uu leeyahay mar walba waxaa dhacda in naadile garoonka loo xiro naadile garoonka foodo kiciyo naadiga sidiisa mar walba foodo kicina waa ujeedaa waxaa fiican inaad ka imaadid warqad degdeg ah ka soo saartid naadigan kale marka soo saartid wuxuu ka imaanaa baqitaan zaa'id a imaanaya marka waxaan aad iyo aad idinkaga codsanaynaa haddaan nahay dhalinyarada degmada in oo baawarka maamulka baawarkiisa lasoo saaro baawar adag maamulka u soo saaro garoonka ma ahan player mise nin oo naadi wato inuu garoonka u xirnaado waxaan barnaamijkayga caaw aan kaga hadli doonaa degmada garoonkeeda waa garoon aad u weyn waa garoon gobolka dhan degmooyinka gobolka dhan lagu qaban karo ciyaarta maasha allah akhyaaray caawa waxaan aad barnaamijkayga diiradda u saaran yahay oo aan kaga hadli doonaa garoonka xaaladda uu hadda ku sugan yahay garoonka waa xaalad loo baahan in laga gaado go-aan degdeg ah ya oblajes la yiraahdo oblajes degdeg ah in laga gaaro waxa waaye in oo macnaha oblajes degdeg uu garoonka naadiyaasha dhan ka keenaan waaye maxaa yeelay mar walba naadi inuu garoonkaas haleeyo waa wax mamnuuc ah naadiga maanta mise shalay mise daraad xiray mise foodada kicinaya mar walba waa inay oblajes degdeg bixiyaan midda kale naadiyaasha waxaan kaga dalbayaa inay isu imaadaan macnaha xumaatadan aadka u weyn mar walba socoto oblajes ay ka bixiyaan kabacdi garoonkooda macnaha qanuun aad u fiican la keeno ayaan ka rajeynayaa caawa barnaamijkayga wuxuu ku aadanay xaaladda ay ku sugan yahay garoonka degmada Luuqganaane halkaas ayaan kusoo afmeerayaa videoga aan la wadaagayay dhalinyaradeyda sportska waxaan leeyahay intii tale iyo su'aalo ay qabta commentiga fadlan channelka dadku cusubtaa subscribe-ka like-ta commentiga share-ta fadlan gamalka furtaa barnaamijka aan soo dhigno aa la socotid waxaa kale aan leeyahay video shal si share gareeyo wixii tale iyo tusaale ii hayana commentiga ay la soo xiriirana waxaan halkan aan ka wada salaamayaa dhammaan bahda degmada bahda degmada Luuq khaasatan sportska guddoomiyaha Saciid Xasow dhammaan maamulkiisa ku-xigeenyadiisa dhammaan waa wada salaamayaa waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan asxaabtayda
kal iyo laab idinku